Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kusoo dhawaada casharka saddexaad lesson 3 waa casharka saddexaad. Maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay pronoun wax kale maaha, waxa weeye magacoyaal. Magacoyaal waa wax la isticmaalo bedelkii magaca, oo intaad dhihi lahayd hebel ama hebla waxaad dhahaysaa iyada ama isaga ama anaga. Marka waa wax la isticmaalo bedelkii magaca. Marka magacoyaalada ingiriiska waxa ay u kala baxaan laba nooc oo marka ficilka adiga aad samaynayso ama qofka ficilka samaynaya loo isticmaalo, iyo nooc qofka marka uu ficilka ku dhacayo oo loo isticmaalo. Marka maanta ayaanu ka bogan doonaa oo aanu baran doonaa qofka marka uu isaga yahay ficil sameeyaha ama jumladda ay isaga ka bilaabanayso. Magacoyaaladan ayaa la isticmaalaa. I waa aniga. You waa adiga. He waa isaga. She waa iyada. It ereygan waxaa loo isticmaalaa sida xayawaanka oo kale, sida geedaha oo kale, sida dhismayaasha, sida shayyaasha kale. Wax kasta oo aan caqli lahayn ama aan naf lahayn waa loo isticmaalaa. Xataa mararka qaarkood caruurta marka ay dhashaan waa loo isticmaalaa. We anaga. You idinka. Ereygan u fiirso, laba macno ayuu yeelan karaa. Marna waataan horey kusoo sheegnay oo aanu nidhi adiga, halkana wuu ku jiraa oo wuxuu noqon karaa idinka. Marka sidaas u baro. You waxay noqon kartaa ama adiga, ama waxay noqon kartaa jamac oo ah idinka. They iyaga. Me aniga. Waa marka ficilka adiga uu kugu dhacayo, me ayay noqonaysaa, oo kuwan meesha ku qoran oo dhan waxaa la isku yidhaahdaa object pronouns. Waa magacoyaalada marka uu ficilka iyaga ku dhacayo. Kuwii hore aan kusoo sheegnayna waxaa la isku yidhaahdaa subject pronouns, oo waa marka iyaga ficilka ay samaynayaan ama jumladda iyaga ay ka bilaabanayso. Marka ficilka iyaga uu ku dhacayo ama jumladda ay ku dhammaanayso, kuwan ayaa la isticmaalaa. Me aniga. You adiga. Him isaga. Her iyada. It waa ereygii oo xayawaanka iyo waxyaabaha aan caqliga lahayn iyo loo isticmaalayay. Us anaga. You idinka. Them iyaga. Tusaalayaal waanu ka bixin doonaa hoos, mid walba sida loo isticmaalo. Tusaalayaal badan ayaanu ka bixin doonaa, laakiin hadda
aanu kala barano qaab kale oo loo qaybiyo pronoun-yadan. Waxaa loo qaybin karaa marka uu yahay keli ama singular. Ereygan wuxuu ka yimid single waa keli, singular keli waa aniga, adiga, isaga, iyada, iyo it oo ah shaygii ereygii xayawaanada iyo waxaan caqliga lahayn loo isticmaalayay. Waa kuwan oo dhan waa mufrad ama waa keli. Plural marka ay yihiin ama jamac waxaa la yidhaahdaa we. Aayadii waxay isku bedelaysaa we. Aniga waxay isku bedelaysaa annaga. You waxa ay noqonaysaa un you oo isma bedelayso. You aniga, you idinka. He, she, it saddexdanna waxay isku bedelayaan they oo waxaa la isku dhahayaa iyaga. Marka keli ay tahay ama singular, I-dii waxay isku bedeshay we oo ah annaga. You-dii isma bedelin oo you-dii unbay taagan tahay laakiin macnihii unbaa isbedelay. He, she, it waxay isku noqdeen they iyaga. I aniga, we annaga, you adiga, you idinka, he isaga, she iyada, it xayawaankii ama wixii aan caqliga lahayn ama wixii aan nafta lahayn, they iyaga. Me kuwana waxa weeye object pronounskii ama magacuyaaladii ficilka uu ku dhacayay. Me aniga waxay isku bedelaysaa us annaga. Kuwani waxa weeye magacuyaaladii oo markaasi la isku dhahayay object pronouns ama magacuyaalada ficilka marka uu ku dhacayo. Singularka marka ay yihiin ama kelida singular marka ay yihiin ama keli waxa weeye me aniga, you adiga, him isaga, her iyada, it waa ereygii loo isticmaalayay xayawaanka iyo waxyaabaha aan nafta lahayn ama caqliga lahayn. Marka ay pluralka yihiin ama jamaca waxa ay noqonaysaa us annaga, you idinka, them iyaga, marka him iyo her iyo it saddexdan waxay isku noqonayaan them ayay isku noqonayaan. Halkan waxaan ku qoray personal pronouns waa magacuyaaladii oo shakhsiyadeed. Personal waa shakhsiyadeed. Subject waa ficil sameeyaha ama qofka uu ku saabsan yahay ficilka. Object waa ficilka meesha uu ku dhacayo ama qofka uu ficilka ku dhacayo. I aniga, me aniga marna waxa weeye waa subject oo waa ficil sameeyaha, marna waxa weeye object oo waa qofka ficilka uu ku dhacayo ama shayga uu ficilka ku dhacayo. Tusaalayaal badan ayaanu ka bixin doonaa sida loo adeegsado. I aniga, me aniga labadani erey waa isku macno. Run ahaantii ereyada dhinacan ku yaala iyo kuwa dhinacan ku yaala waa isku macno laakiin mid walba sida loo isticmaalo iyo jumladda halka uu ka gelayo hoos ayaan tusaalayaal ka bixinaynaa. Kuwa dhinacan waa meesha jumladda ay ka bilaabata ama ficil sameeyaha. Kuwanna waxaa la adeegsanayaa marka jumladda la dhammaynayo ama ficilka meesha uu ku dhacayo. I aniga, me aniga, you adiga, you adiga, he isaga,
him, him, him isaga. She, she iyada. Her, her iyada. It, it, it waa ereygii loo adeegsanayay xayawaanka iyo waxyaabaha aan aqliga lahayn ama nafta aan lahayn. Kuwani waxaa la isku yiraahdaa waa marka kelida ay tahay oo singularka ay yihiin. Waa singular ama kelida ama mufradka. Kuwana waxa weeye pluralka marka ay yihiin. Plural waa jamac ama wadar. Pluralka marka ay yihiin marka aad dad badan tihiin bedelkii aad dhihi lahayd aniga waxaad dhahaysaa annaga. We, us, you, idinka. You idinka. They, iyaga. Marka ay ficilka iyaga samaynayaan they ayaad adeegsanaysaa. Them marka uu ficilka iyaga ku dhacayana them ayaad adeegsanaysaa. Meeshan tusaalayaal ayaanu ka bixin doonaa. Tusaale ahaan aniga idinka ayaan idinla hadlayaa. Aniga adiga ayaan kula hadlayaa ama idinkaan idinla hadlayaa. Waxaan dhahayaa I ayaan isticmaalayaa. Aniga ayaa ficilka samaynaya. I am talking to you. Adiga ayaan kula hadlayaa ama idinka ayaan idinla hadlayaa. Haddii idinka aad ila hadli lahaydeen oo aniga hadalka ficilka uu igu dhacayo waxaan adeegsan lahaa me. Meesha aan I ka bilaabayna me ayaan ku dhammayn lahaa. Waxaan dhihi lahaa you are talking to me. Marka subject pronounka ama magacuyaalka la adeegsado marka qofka ficilka uu isaga samaynayo ama ficilkaas isaga uu ka imanayo waa I. oo marka uu ku dhammaanayana waa me. U fiirso hadalka meesha uu ka bilowday iyo meesha uu ku dhammaaday. Labadan eray me iyo I waa isku macno, waa aniga. Laakiin midna waxaan adeegsaday markii aniga aan ficilka samaynayay oo aniga aan hadlayay. Midna waxaan adeegsaday markii aniga la ila hadlayay. Tusaale kale ayaan idin siinayaa. Haddii uu isaga hadlayo oo isaga uu idinla hadlayo waxaa la dhahayaa he is talking to you. Waxa uu la hadlayaa idinka. Isaga waxa uu la hadlayaa idinka. Haddii idinka aad hadli lahaydeen ama adiga aad hadli lahayd ood isaga la hadli lahayd waxaa la adeegsan lahaa he bedelkii la isticmaalay. Waxaa la adeegsanayaa him oo waxaa la dhahayaa you are talking to him. You are talking to him. He iyo him waa isku macno. Labadaba waxaa laga wadaa isaga. Laakiin he waxaa la adeegsaday markii uu isaga ficilka samaynayay oo subjectiga uu ahaa. Himna waxaa la adeegsaday markii uu isaga ficilka ku dhacayay oo objectiga uu ahaa. Marka sidaasi u kala faham. Tusaalayaal kale oo badan oo sida loo adeegsado pronounska ama magacyaalada kuwa ah subjective pronoun oo ficilka samaynaya iyo kuwa ah objective pronoun oo ficilka uu ku dhacayo. Casharada soo socda ayaan kaga bogan doonaa oo tusaalayaal badan ayaanu ka bixin doonaa. Casharkii 3aad intaas ayuu noogu egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maca salaama.